Faahfaahin kala duwan ayaa waxaa laga helayaa weerar qaraxyo ku bilowday oo ay ururka Al-Shabaab barqanimadii maanta ku ekeeyeen xero ciidamada danab iyo sidoo kale kuwa Mareykanka ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan Beledoogle. Laba gaari oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa la sheegay inay Al-Shabaab xerada ku weerareen, waxaana wararku ay ku waramayaan in qaraxyadu ay ka dhaceen qaybta bankinka diyaaradaha droniska ee Mareykanka. Waxaa jira khasaare kala duwan oo qaraxaasi ka dhashay, kaas oo aan weli la shaacin tirada ku waxyeelowday. Hase yeeshee waxaa jira dagaal toos ah oo dhexmaray ciidamada danab iyo kuwa Mareykanka oo dhinaca iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo xerada soo weeraray. Geesta kale goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in ay maqleen jug culus iyo sidoo kale rasaas xoogan oo ka dhacaysay gudaha xarunta. Hase yeeshee ilaa iyo hadda ma aysan sheegin khasaaraha ka dhashay. Geesta kale ciidamada xoogga dalka ayaa xaqiijiyay in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xerada ciidanka xoogga iyo sidoo kale saaxiibada Mareykanka ee Beledoogle. Hase yeeshee ay sheegeen in ay iska difaaceen weerarka kaga imaaday ururka Al-Shabaab. Saraakiisha ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ciidamadu ay ka hortageen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo doonayay inay galaan gudaha xarunta, isla markaana ay toogteen sida ay hadalka u dhigeen. Marka laga soo tago hadalka taliska ciidamada xoogga dalka, ayaa Al-Shabaab dhankooda warar ay ku baahiyeen baraha ay ku leeyihiin internetka waxa ay ku sheegeen in ay u suura gashay in ay dagaalamayaashooda qaarkood ay gudaha u galaan qayb ka mid ah saldhigga Beledoogle, isla markaana halka ay ku dileen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo Mareykanka. Cabduqaadir Maxamed, warbaahintiisa Muqdisho.